markan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka dhaqanka iyo hidaha oo aad xiliyadan kala dhegaystaan. waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya axmed faarax cali idaaja. waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o a da. dhegaystayaal, jacaylka ay u qabto oo ay ku muujiso ka sokow hooyada soomaaliyeed heesihii ay carruurteeda ku maaweelin jirtay waxaa ka buuxa qaar ay ugu ducayso, kuwo ay ugu saadiso markuu weynaado inuu noqdo nin magac weyn leh oo madaxa oo meeshii uu joogaba isaga looga dambeeyo, nin geyiga ay cidahoodu degaan guddoonka ka rida tiisana la wada raaco, nin deeqsi ah oo mudano iyo martiba lasoo wada tamadiyo, nin garta loola yimaado laguna wada kalsoon yahay. waxay ugu ducaysaa inuu noqdo nin intuu cimriyo ay ciradu madaxiisa wada saabato, isla markaasna sida roobka iyo harooyinka loogu oombaxo, dadkuna wada mahdiyo. heesaha ducooyinkaas xambaarsan kuwa ugu caansanna waxaa ka mid ah goble iyo gobabka yeyle, nugaal godan goodigeeda, guddoonka ka yeeriyowa, gartuu gabangaabsadowa, guntiga faraha gashoowa, cirada gaashaysayowa, gaboobe gaatiyowa, dixdii gaaroodiyowa, dig weyn oo buuxsantowa. maalin kale ayaa canugu ka xanuunsadaa, markaas bay aad uga walwashaa, dabadeedna caafimaad bay ugu ducaysaa. cudur gaara oo haya ma ay taqaan, loomana sheegin. waxayse og tahay xalay oo idil inuu soo jeeday, iyadana soo jeediyey xanuun awgiis. markaas bay u eebbabaridaa, kana filataa intuu ducadeeda aqbalo inuu malaa'igtiisa fayoobi ugu soo dhiibo oo canuga sidaas cudurka looga qaado. intay hadba xubin u salaaxdo ayay tidhaahdaa, halkaad xalanow xoqaysay, halkaad xalay ladis ka weyday, laguu mari sacab malayko malaa'ig ha kuu salaaxdo. markuu soo yaro roonaado ayay haddana waxay ugu ducaysaa aqalka iyo agagaarkiisa inta uu kolba dhinac u gurguuranayo inuu eebba ka ilaaliyo qniyada halista ah ee abeesada. waxay kaloo ugu ducaysaa hadduu yar yahay iyo hadduu koraba dadka ishiisa iyo dhowdiisa inuu eebba ka dhowro, gaar ahaanna umusha oo habaarkeedu inaan laga kicin ay bulshadii waayadaasi rumaysnayd. waxay tidhaahdaa, abeesa lug kaama goyso, aroos eli kaama raacdo, umulifiid kuma habaarto. markuu dhab u caafimaado ayay hooyadu farax la kala badataa. kolkaas bay ugu ducaysaa inuu weligiiba dhex joogo qoyskooda oo dhagadhan, gacal hareerihiisa tubanna abid aanu waayin. waxay tidhaahdaa, hawaayin wax siisa hooyo, hawaayin wardheere aabbe, hawaayin walaalo dhowra, hawaayin intii wax ku ah. dhinaca kale, hooyada soomaaliyeed markii canugeeda u heesayso way ku ammaantaa. mar waxay ku sheegtaa inuu yahay wiil u taagan wax walba oo ay bulshadoodu jeceshahay, wanaagna ay u taqaan. waxay ku tilmaantaa dadka inuu ugu qurux badan yahay, derisyaduna ay isaga u soo daawasho tagaan, sidii bilanay bacaraboo banan u guurtay, buftiyo shaal wada hagoogan, banaag loo daawayowa. mar kale, iyada oo rabta isku mar inay ku ammaanto hormuudnimo, deeqsinimo iyo dagaalyahannimo, ayay isaga intay weydiiso waxay ku tidhaahdaa, wariyaa, xalay oo dhan markaad qaylinaysay ee qayladaada laga ladi waayey maxaa talow kugu wacnaa? ma odayaasha reeraha ayaad ururinaysay oo arrin culus darteed baa geedka shirka ugu wacaysay? mase geel colkii soo dhacay ad adigu ammaanduulihiisa ahayd ayaad raggii soo qaaday u qaybinaysayoo midba saamigiisa aad guddoonsiinaysay? mase intaba ma ahee dagaal ba'an baad ku jirtayoo rag aad col tihiin ayaad warmaha ka aslaysay. waxay tidhaahdaa, qalombiyow qayla dheere markaad xalay qaylinaysay, maqaafaad ururinaysay,
ma geel baad qaybinaysay ma qayrkaabaad qalaysood qaylinaysay u fiirso sida loogu ababinayo ee loogu qurxinayo dhaqanka dagaalka iyo xoolo kala qaadka. mar kalena waxay ku ammaantaa siduu yahay nin aan sina looga maarmi karin. waxay ku tilmaantaa nin qoyskooda iyo bulshada kaleba ay aad ugu baahi qabaan sida ay ugu baahan yihiin bisha markay dhalata lagu rayreeyo ee mugdiga looga raysto, burcadka jiilaalka kadib caanaha la lusho laga helo ee inta lagu subkado basaasta lagaga baxo, caanaha maalinta la geediyo inta la baraxo ay laabtu ku qabowsato, iyada oo si weyn oon loogu qabo biyaha la helo, iyo boqorka tolka oo wax badan reeraha ka maqnaa imaatinkiisana dhab loo rabo. waxay tidhaahdaa sidii bilanay bil dhalatay bil dhalatoo beeshu aragtay, sidii burcad loo basaasay, sidii barax maalin geedi, sidii biyo loo haraaday, sidii boqor loo buseelay, bilow loo baahanowa boggayga qaboojiyowa. mar kale sidii isaga oo af soomaaliga dhab u yaqaan ayay hooyadu wiilkeeda ula talisaa. heesaha qaarkood ayay ku bartaa waxyaalaha markuu weynaado ku habboon iyo kuwa aan ku habboonayn. waxay u kala dhigdhigtaa falalka iyo dabeecadaha kuwooda ay bulshadu ogoshahay, dulqaadkana u leedahay, iyo kuwa aysan jeclayn ee qofka lagu naco. haddaba heesta soo socota ayay hooyo Soomaaliyeed waxay inankeeda ugu sheegaysaa isaga oo geela la jooga haddii lasoo weeraro inaanu noqon fulay goobta ka carara, isla markaasna aanu ku tilmaanaan geesi naftiisa biimeeya. waxay tidhi haddaad gaadhood gabowdo, haddaad geeleenna raacdo, haddii guluf kuu yimaado, fariid waa lala haraaye, furuhu waa baydadaaye, haddaad fiigto ha fogaane. waxay rabtaa inuu u noolaado, haddana aan la caayin oo ragga dhexdiisa aanu berri ka maalin ka takooraan. ma isku heli kartaa? waa su-aal meesha ku jirta. dhegaystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hidduhu maanta halkaa inoo jooga, waana toddobaadka soo aadan iyo ku lamid ah hadduu eebba idmo.